Waryadahan hello waa qumayo xor xildiid waa anigiyo soo laabtay so videogani wuxuu ku saabsan yahay hordhac yar baan soo dhigay in a short and mar dhaweyd oo waxaan rabaa sabtidan ilaa waa la ishalaagaya waa la isgubaya aakhira zabaankii baa lagu jiraaye 7kan uu dhamaanayaa waxaan idhi waxyaalo badan ayaa su'aal idinka weydiiyay waxaan idhi Lido Beach imika xamar ku taala xalane waxa ka socda khaniisnimada wiilasha yare waashay ya naagahan waashay and especially geeridan dadka lagu mashquuliyay oo de laga dhigayo labadii adduunka ugu qiimo badnaa inay dhinteen oo dad caabudkan iyo magaca koonfur iyo kaafirnimada maxaa isku keenay waa idin yar micnaynaya xalay toonana gabadha saaxiibina bay la soo hadashay wallahi bilaay waxbay tusta sawirka kan aan soo dhigi doonaayo sawirkii markay tustay ilaa waaniga maalmahanba saacadii iyo waqtigii ka hadlayay waxa la yidhi waa la shift garaynayaa jihadii qibladii baa isbedelaysa quraan lagrina waxa la yidhaahaa suurata toobo eega u fiirsada suuratul tawba waxaad ka arkaysiin dee xagga la jooga iyo imika qiblada loo socdo ma fahanteen vigana waxa weeye north polka cusub aynu u soconno oo de adduunkii waa kan imika la gabagabaynayo hadaad u fiirsatiin waa hadaad wax fahmi karaysiin ilan dadku markay maskaxiyan ka qaawan yihiin dhar kastoo xidhaan ma asturayo ma ogtiin taas horta oo dee ceebtoodii baaba banaanka taalane intay oo maryo hadaad isku dadid ood maskaxiyan qaawan tahay dee ku qarin mayso so waxaynu ku bilaabaynaa sheekada xalana iyo Lido Beach baynu ku bilaabaynaa hadhow toole towards the end ayaa idinla wadaagaya waxay gabadha saaxiibada ii sheegtay ma fahanteen obviously weli lighter ma soo iibsanin marka lightkaygii nuurkaygii dabkaygii faynuuskaygii way ii daaran tahay ma fahanteen ilaa waa mugdi waxba lama arkaye but kana waan daaraya qumqumtii shayaadiintii way rafanaysaa intii ugu dambeysay baa imika khadka laga saarayaa mid baa jirtay food madoobayo nin fiican u malayn jiray oo dee siyaasadda iyo waxyaalahaas ka hadli jiray waa cabaar ninkii ma u fiirsaday horta dadka waxaa la yidhaahaa long enough daawo observe and then iyagaaba ku tusayaba qofkay yihiin the mask comes off mogtahay ninku inuu shaydaan yahay baaban ogaaday wallahi saa u daawanayay laakiin markii ugu horreysay daawaday markastaba markuu dadka salaanta islaamka ku salaamayo waa kaafir buu idhaahaa markaasaan idhaah waryaahe marbaan usoo qoran ku yidhi kaafirka meesha maxaa usoo gelinaysaa waryaa obviously dee naag baan ahay mogtahay nimankan wallahi markaan kuleeya waa kinterley waa wada zero waxay moodayaan inaan la fahmayn shayaadiintani mugdigooda godka madow ku jiraa inaan la arkayn bay moodayaan so aynu ku bilaawno horta southkaynu micnaynaynaa marigii idinka soo sheekeynayay yaman waxa loo yaqaanaa south soo maaha queen of the south oo waa magaca dee marna bilqays loogu yeedho marna shiibaa la idhaahaa oo waa tii solomon u timid so koonfur inagu southka koonfur baynu idhaahnaa laakiin koonfur xaggee ka timid kaafir bay ka timid asal ahaan ereygu kaafir buu ahaa marka sheekadu hadday saas tahay ilan soomaalidii hore kushaydkii hore dadkii hore waxay oran jirtay cilmigu iyo peaceu iyo nabadu iyo diintu waxay la socotaa north wind bay oran jireen hawada waqooyi ma fahantay and then haddaad xitaa u fiirsatid magaca xamar waa meel xaxdi martay xamar waa meel dee xax martay weeye dab baa maray dab baa qabsaday meesha reer xamarkuna iyagu maxay idhaahaan kuwa xamar degan muqdisho idhaahaan meel muuqii dishay makes all sense haddaad u fiirsatid meeshan xax baa martay muuqii bay dishay dee waa meel wax soo maran weeye waa meel hawo kulul martay ilaan hawadii kulul way idiin soo socdaa dadan iska qabanayna laakiin iminka ma u eko dadkan wax inay iska qabanayaanba so xalana iminka wax ka socda waynu wada garanaynaa waynu wada aragnaa xalana xitaa haddaad u fiirsatid beri dhaweytoole waa tii lalahaa wiilal yaryar baa jira oo dee basically niman waaweyni
ya nimankan waaweyne maxaa la idhaahaa baashaalka u yimid ya sex tourism u yimid halkaasay fadhiyaan xeebtaas xalane liidoy fadhiyaan wiilasha yar halkaasay ka daawadanayaan halkaasay ka urursanaan dhowr jeerna tiktoka ya sheekada waa lasoo geliyay waa laga hadlay haddana waa la qariyaa I don't know dadku markay meeshii wixii tooshkii ku iftiimiyaan maxaa dhaca waa la jeediyaa dadka waxyaalo kalaa la keenaa kuwa wax jeedinayana waa Soomaali haddaad u fiirsatid ya wixii marka la arko tooshka lagu iftiimiyo group kala haddana wax ka hadlaysa oo dadkii baa la leexinaya ya marka meeshaasi waa meel yar oo wiilasha yar lagu soo beegto ya gabdhaha iska daa wiilashay meesha maraysaa sheekadii ya wala soo socdaayo ilaa iyo dee 20 jirkii xitaa ma la rabo waxaa la rabaa 14 jir 15 jir wiilasha yar yar ya marka sheekadan haddaad u fiirsatid waa sheeko Greek weeye ya ama dee sheeko Roman weeye ma fahanteen